mar haddaanan waarayn wadka aanad celinayn kuwa kugu wardiyaya sida weli ku caabida ku wanaaji khayrkay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. geeridu xaq weeye. waxaanu tacsi u direynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay abwan maxamed ibraahim warsame hadraawi. waxaan uga tacsiyadeynayaa geerida naxdinta leh. waa geeri culus. ilaahay naxariistii jannada ayaynu u weydiinaynaa innagana inuu samir iyo iimaan inaga siiyo. hadraawi abwaan keliya ma ahayn, laakiin nin fara badan buu ahaa. kelmad iyo laba iyo saddex toona laguma soo ururin karo hadraawi. hadraawi wuxuu ahaa nin aad iyo aad aan ugu xasuusto anigu saddex masalo oo la yaab leh oo kolley iminka dadka nool aanan ku arkin. oo ta ugu horreysaa ay tahay inuu ka xishoodo adduunka urursiga iyo oo aan adduunyada waxba ku fali jirin iyo darajada iyo waxaan la isku leeyahay la isku haysteen rag ku baaba'een aan waxba ba isagu aqoonagtiisa waxba ka hayn. ta labaad oo ahayd dulqaad la yaab leh oo qofka intuu rabo hadduu baalash leeyahay iyo hadduu madaxweyne yahay inta u dhaxaysa dadka uu qofba inta uu rabo dhageysan jiray oo u dulqaadan jiray. oo dulqaadka la yaabka leh ayaan ku aqaanay. waxaan kaloo ku aqaanay ixtiraam aad u fara badan oo dadka ixtiraamo iyo xishood baan ku aqaanay. ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo. inaanu adduunyo waxba ku fali jirin, darajana waxba ku fali jirin, maasooyinkiisa baa lagala soo dhex bixi karaa. sidaa uu haraggu ugu dhegay aad sawirkiisa ku tacsiin aad ku aragtaan ayuu dhaqanka iyo xishoodka iyo dadnimada ugu dheganaa. sidaasuu ka ahaa adduunyo iyo lufanka iyo waxaan la urursanayo. maasadiisa waxa ku jiray darajay wad lagu yidhi wad wadaan wad lagu yidhi hantiyayna kuma waco wahowna kuma dhaho weligaana kuma sugo waayo waayadadii soo geel ma wadi jirin soo aabba weydiye wax maxaystay ma dhalin waris caana kama dhamin ina walawal maani hurra lama walaali. mar haddaanan waarayn wadka aanad celinayn kuwa kugu wardiyaya sida weli ku caabida ku wanaaji khayrkay. iswanayntaada iyo wadhahayla soo gelin hayga jabinin weysada. bismillaahi raxmaani raxiim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. geeridu xaq weeye. qof kasta oo adduunyada korkeeda jooga siduu doonaba ha ahaadee waa ka hooyanaya maalin maalmaha ka mid ah. maanta halkan waxaan u taaganahay oo aanu la murugaysanahay oo aanu la baryootabaynaa bulshada Soomaaliyeed dhammaan meel kasta joogtay inta mayga iyo maxaa tiriba ku hadasha oo maanta tacsida inoo taala ay tahay maxamed warsame hadraawi maxamed warsame wacays hadraawi hal abuur barbaariye dhaqan asluub iyo edaab iyo xishood iyo abwaannimo iyo dad isku wad iyo dulqaad iyo asturnaanba allaha waaxidkii uu ku kulmiyey oo marag aynuga nahay markhaatiyaashii iftiinkeenu nahay maanta uu kaga horreeyey. waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariistay maxamed warsame hadraawi. allah ha u naxariisto maxamed ibraahim warsame hadraawi oo shalayta ku geeriyooday magaalada Hargeysa. waxa aanu ka tacsadeynaynaa oo aanu leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo, gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii iyo caruurtii adeerka u ahaa ilmo qaasin iyo ilmo hurre iyo magaranaysa inamadii kale adeerka caruurtii kale adeerada u ahaa oo dhammaan hablihii inamadii dhammaantood reer warsame waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo. qaranka Soomaaliyeedna waxaanu leenahay samir iyo iimaan allah inaga siiyo. dhammaan ummadda Soomaaliyeedna waxaan leenahay samir iyo iimaan laga siiyo. maanta waxa inagu waajibaa inaynu soo ducayno meel kasta aynu joogno iyo qof kasta aynu nahayba. maxamed ibraahim warsame hadraawi oo aynu ku xasuusanno waxyaabo aynaan soo koobi karin. nin maxaad ka taqaanaa baa laga sheegaa baa la yidhi waxa aan ka xasuustaa wixii uu nabray
waxa aan ka xasuustaa wuxuu noo sheegay waxa aan ka xasuustaa wixii nalooga sheegay waxa aan ka xasuusanaa waxaanu ka aragnay waxaanu ka xasuustaa wixii aan ka maqlay waxaan anigu calaamad gaara aniga gaar ahaan weliba ay ii taabanaysaa inuu ahaa allaha u naxariistee macallinkaygii oo aanu in badan kulannay in badanna suugaanta uu igala teliyey in badanna uu ii jeexay waddada suugaanta loo maro teeda foosha xunlana uu igala teliyey teeda wanaagsanna uu igula teliyey allaha u naxariistan leh ilaahay u naxariisti janno waraabi alle ilaahay abwaan baa dhintay iyo uuba kala jeex alle ilaahay abwaan baa dhintay aabakoriyi sidaa darteed waan u ducaynaynaa dhammaan hal abuurka si gaaraan uga tacsidaynaya fanka iyo suugaanta raggii ay isku qarniga ahaayeen ama ay soo wada mareen ee maanta qaar nool yihiin ee ay magaalooyinka joogaan gaar ahaan Hargeysa intoodii badan ay ku sugan tahay iyo intii kale ee ay magaranaysaa soo wada shaqeeyeenba waanu ka tacsidaynaa waxa kale oo ka tacsidaynaa ayaan cashuur iyo magaranaysaa dadkii gacanta ku hayay jaamac muuse jaamac iyo dhammaan intii gacanta ku haysaba sida Cabdirashiid Habshiil oo kale rag badan iyo dadkii gacanta ku hayay ee sida gaarka ugu hayay intaanu ilawnay iyo intaanu xasuusanayba waxaanu leenahay samir yeeman Allah inaga siiyo abwaan la jeceliyay buu ahaa xaqii baa yimi geeri baan cidnaba deynahayn waxaan oran karaa anigu wuxuu ahaa hadraawi oo hal hayso soo qaadan karaa ereygii qaasin ee ahaa miisaana ima saari karanin malaya ninkaasi nin la soo koobi kara taariikhdiisa ama wanaagiisa ama xigmadu ka tagay ama aqoontu ka tagay ma aha waa nin Soomaali ka dhintay waa nin islaamka ka dhintay waa nin ummadda afka Soomaaliga ku hadasho ka dhintay waa nin taariikhda taariikhiyan oo ka dhintay ilaahay